boobeen bari dhexe intuu dego dhirta kuma afaysteen Israa'iil ma boobeen bari dhexe intuu dego dhirta kuma afaysteen boqolyuudie ragbabiirinaayo barka u fiiraaye barqalagu magaariye runtii aad iyo aadaan ugu faraxsannahay haddaan nahay dhallinyaro in madaxweynuhu caawa kulanka noocaana uu noo sameeyo caawa inuu noo sameeyo soo dhoweyntan iyo la kulankan runtii madaxweyne waxaan kuu qiraynaa kaagana mahad celinaynaa dhallinyaradu inay yihiin hiil waxaan adkaynaynaa dhallinyaradu inay yihiin hiil marka siyaasadda lagu jiro dabcan lama baahna dad waaweyn iyo mid maaragtay kaliya looma baahna waxa loo baahan dhalinyaradu waa mashiin wax dhaqaajiya dhalinyaradu waa maaragtay waa mashiin wax bedeli kara oo isla markaas bedel keeni kara mudan madaxweyne waxaan kaga mahad celinaynaa inta xilka aad haysay dowladgoboleedka galmudug waxa ku soo biiray shaqaale badan oo tayo aad u tayeysan oo ay ka mid yihiin runtii kuwa xafladan abaabulaya oo maaragtay muuqaalka tayadan qurxoon iyo dadka intaan leeg isku keenay runtii madaxweyne waxaan taas ay tusaale u tahay dhalinyaradu inay yihiin dad mashiin ah oo maaragtay dhaqaajiya dawladnimada oo ah public administrators ayagu dawladda maamulo isla markaasna shacabka u adeega taasina waxay cadaynaysaa oo maaragtay meesha maaragtay ay ka saaraysaa in maaragtay macnaha maamul darra ay meesha soo gasho maamul wanaaga waxa qayb ka noqon kara marka hoggaanka sare laga soo tago dhalinyarada runtii dhalinyaro fiican iyo hoggaan wanaagsan ayaan maanta haysanaa madaxweyne waxaan aad ugu faraxsanahay in aan caawo annagoo dhalinyaradii reer galmudug ahayd wixii dhuusam reeb joogay inaan maanta caawo la joogno madaxweynaheennii uuna noo sameeyey casho sharaf waxaan aad ugu faraxsanahay oon khaas ahaan ugu faraxsanahay madax iyo shacabkeeda oo wada tashanaya kana timid madaxdii in ay shacabkooda la tashato oo ay masiirka dalkooda ama deegaankooda ay kala tashato halka ay wax marayaan mar walba step by step oo la soo socodsiisa ma ahan markii ugu horreysay ka qayb galo mar uu madaxweyne xaaf uu saasoo kale dhalinyarada uu la kulmayay xilligan xilli ka horreysay oo meeshan ku kulannay ayaa jirtay mar walba waan bogaadinaynaa madaxweynaha sida wanaagsan oo dhalinyaradiisa iyo shacabkiisa oo u danaynayo inuu ka qayb geliyo ama ogeysiiyo waxa xaaladda meesha ay marayso runtii madaxweynuhu waa ku sharfan yahay waana lagu yaqaanay inuu kulamada noocaan ah oo bulshadiisa ugu kuurgelaya mar walba oo qabto si gaar ah dhalinyarada kala duwan oo gabdhaha wiilal halkaan inuu caawa ku casuumo oo kula kulmo madaxtooyadii isagoo kala hadlaya masiirka galmudug iyo howlaha maaragtay kala duwan ee galmudug hor yaalla waxay noo tahay annakana sharaf asagana waxay u tahay horumarka iyo howlaha la higsanayo galmudug inay gaarto in laga talageliyo dhalinyarada oo mar walba iyadoo ah haldoorka bulshada marka waxaan leenahay mudane madaxweyne hambalyo dhalinyaradu mar walba waa garabkaaga waana gacantaada midig ka fiir insha Allah garabkaaga midig waxaana kaaga hambalyeynaynaa sida quruxda badan ee aad noo sharaftay halkaan aad maaragtay noogu casuuntay fiican ilaahay roobna waa noo keenay roobka iyo raxmaddu markay yimaadaan waa marka wanaagu jiro waa hamayn fiican mar walbana waa loo baahan yahay haddaan bishii labadii biloodba intaan qabsan lahayn mar hore intaan waa ka sii fiicnaan lahayn baan u malaynaya si aad og tihiin gobolkan intii aan joognay wax badan baa noo qabsoomay alxamdulilah rabbilcaalamiin nabad iyo nolol fiican waa la helay noloshii fiicnayd iyo wixii oo dhan waa jillaafooyin badan waa iska jiraan laakiin bal waa istiilaynaa insha allahu tacaala dadkeenna inaan isku kalsoonaanno isku tashanno kuwa nabadda iyo wanaagga ka soo hor jeeda aan ka wada hortagna waa loo baahan yahay dhallinyaradu waa ubaxa geedka markuu rabo inuu midho dhalo ubax buu dhaliyaa ummadduna markii ay yacni
noolaanaysa ama badanayso ubax baa soo baxa ubax waa dhallinyarada ubax hadduu fiican yahay miro fiican baa soo baxa adinku haddaad fiicnaataan waa fiican tihiin bee waa hubaaye wax fiican ayaa soo baxaya insha allahu tacaala in amnigeenna iyo nabadgelyadeenna iyo sidii carradaani nabad u ahaan lahayd oo aan ku sii socon lahayn aad baa noloo ka dhabqinayaa waad og tihiin waxyaalo badan baa dhacay asbuucyadan gaalkacyay ka dhaceen halkay ka dhaceen cadaaday ka dhaceen meel walbay ka dhaceen xaaladaasay ka dhacdeen balanballe dhibaato waxaasoo dhan inay istaagaan oo joogsadaan dawladnimo iyo dadnimo iyo amni in laga shaqeeyo unbaa loo baahanya annaga intii waxqabad iyo tabari tahay waa ordaynay haddana waxaan rajaynaynaa inaan ka sii kobcno ilaahay hadduu maaragtay nagu simo aanu wax wanaagsan qabanno ayaan u baahanna adinka laftiinna difaac badan baa laydinka rabaa oo aan yarayn waad ogtihiin xalay baraha bulshada wixii la dhigahayay waad ogeydeen waxyaalaha la yaab leh oo mucjisaa wey waa kuwa annaga nala jooga dhuusamareen baa laga diray markii ugu horraysay sida la ii sheegay waana ogtihiin rag badan dad doona meesha fadhiyaan oo idin yaqaanaan baa laga yaaba haddaan waxaa la wada qabanna qof keliya waxba ma qaban karo annaga colays badan baan haysta waad ogtihiin colayskana insha allah waa iska caabinaynaa saan isaga caabin lahayna dhallinyarada yaa loo bahay waxaa la rabaa dadka naga soo hor jeeda wanaaggeenna ma rabaan wallaahi inaysan rabin wanaaggeen halkaan maalintii aan imaanaynay oo ugu horraysay meelo badan baan dhagax dhignay wax soo laabta ma aragteen maydnaan arag mana arki doontaan wax badan ayaa jira hal sano aniga xataa gurigayga ma tegin hal sano xamar ma tegin anwaxaas inaad ogtihiin baan u malaynaya cadaadana diyaarad baan ku dulmaraa ya laakiin intaasoo dhan dagaal baan ka xigaa waana gaari doonnaa insha allah cidana nagu gumaysan mayso galmudug waa ka shaqaysanaynaa waana joogaynaa awal waxbaan danaynayna waa gagabanayna waxaan islahayn amaan waxsi noqdaan laakiin hadda run bay geyday dalka ayaan ka shaqaysanaynaa wax badan oo aan loo jeedinno waa noo imaan doonaan khayr badan waa helaynaa warshadaan dhisanaynaa jidadkayga waa dhisanaynaa hadda asbuucan waxaan bilaabaynaa jidka guriceel iyo ceel dheer waa bilaabaynaa waana samaynaynaa wax badan oo kale oo aan gacanteeda ku samaysan karnaa jira waanu samaysanaynaa waana ku tillaabsanaynaa wasaaradihii iyo kulli hadday shaqo bilaabayaan wax walba waan helaynaa insha allahu tacaala difaacana cidiina soo weerartana gaashaankaan u daruraynaa ciidamadii waa dhisaynaa gaalkacyo waa soo dhisnay halkana waa dhisaynaa cadaada waa dhisaynaa cawada waa dhisaynaa meel walbaa ka hagaajinaynaa insha allahu tacaala dadku shaqay wada helayaan qof waliba mushaar inuu qaato dadka dhallinyarada ama rag iyo dumarba ha ahaatee wixii aan wax baranayn inay shaqo helaan baan ka shaqaynaynaa waana heli doonaan insha allah